warxishoon weyna tahay haddaad gabadhaas meel ku soo sheegin annaga adiga meel kugu sheegin haddaba ogow waxaan bala qaadana waa fuliya hal isdilo haddaad daawo mooday waxay ku dhashaa arkaysaa ma ka aamusayno mana ka waabanayno gabadhaas wixii ka dambeeyey dhibaateynteeda ninkan waa Jenaraal Xuud oo ka dagaalama magaalada Beledweyne nidaamka Hirshabeelle ayuu inta badan diidan yahay laakiin saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta ayuu shir jiraad u qabtay wuxuu ka hadlay arrin ay ka wada aamuseen siyaasiyiinta madaxda maamulka Hirshabeelle ee dowladda federaalka ku jira iyo kuwa xataa maamul goboleedka wuxuu ka hadlayaa dhibaatada ikraan tahliil oo nolol iyo geeri lagu waayay muddo bil iyo bar ka badan inkastoo dowladda ay gudi u magacaawday xaqiiqo raadin ah balse maalintii la magacaabay gudigaas kadib lama arkin iyaga oo mar dambe gabadhaas xaalkeeda iska wareysanayo haddii gudiga ay hadli lahaayeen ama dowladda iyagu ay kulmeenba ee arrinta ikraan ay ka wada hadli lahaayeen mar kale ma muuqato laakiin Xuud wuxuu sheegayaa in gabadhan haddii nolol iyo geeri lagu waayo cidda uu qabsan doono haddaba cidda uu haysto waa kuma ikraan ahayd ee laga afduubtay gurigeeda ee ilaa hadda maqan gabadhaas arrinteedu ma tii Sacuudiga oo kala Jamaalka Suuqi faad waa la soconaa gabadhaas hadday dhimato iyo hadday noo shaabaaday ab iyo hooy ku leedahay dekanooyin badan arrin Hiiraan ka gashay tii ugu xumeed oo ugu farxumeed waayt mana la isku cafinayo armay maslaxad tahay marka gabadhaas inaad gurigeedii ku soo celisaan midda kale cib falxumo sharaf darro karaama darri dawladda ku tahay war xagee adduunka lagu arkay gabar waa hooyo كون إنك الله يستوى هذيك فاد ياسين شل هذا إنجليز كان هذه كل جوكتي حدنا أيدي الله تاريخ عد واحد نوقوه هنا قبل والد كذا أنها داد بلو هنا قبلها يقولوا استشان نبتدي شو وحبه نقصنا وكل شيء هذا بس كنت تلقى هو عفن ما يقبل سرميد من الله ما شعرت تقل دبت يقول ما شعرت كتك سومالي وين مغليسان 25 جولاي maalmo ka hor dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliiska degmada Xamarweyne waxay soo qabteen in lagu magacaabo saadaq oo ay ku sheegeen in lacag $2,000 Mareykanka uu ka qaatay ehelka ikraan tahliil taas oo ku sheegay in gabadha isaga gacantiisa ay ku jirto dibna loo soo celin doona balse isagu markaas matalaya nabad sugidda Soomaaliya sida uu lacagta ku qaatay laakiin arintaas waxay dhalisay dood badan oo u muuqatay in kiiska ikraan la rabo in lagu baabi'iyo balse mar dambe xitaa ma la arkay saadaqii booliisku ay soo bandhigeen in mar kale arintiisa la soo hadal qaaday fadlan haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray oo aad daawatay oo aad ku mahadsantahay haddii aad daawatay oo halkan aad ku jirtid waxaan ka codsanaa muuqaalka inaad qabatid la wadaagtid saaxiibadaada kale si arrimaha nooca dadka oo dhan ay ugu dhiidhiyaan mahadsanidin